kulankan ballaaran ay saaka isugu yimaadeen mas'uuliyiinta gobolka Togdheer saraakiisha ciidamada bahda cadaalad iyo garsoorka gobolka oo ka qabsoomay xarunta gobolka Togdheer ayaa ahaa mid lagu falanqeynayay amniga gobolka Togdheer isla markaasina baaq loogu dirayay waalidiinta dhashay dhalinyaro muddooyinkii ugu dambeeyay falil amni darro habeenkii ka fulisa gudaha magaalada Burco barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibraahin Aadan Qabyatire iyo qaar ka mid ah saraakiisha kala duwan ee ciidamada qalabka sida gobolka bahda cadaalad iyo garsoorka gobolka Togdheer oo kulankani markii uu soo idlaaday ka hadlay ayaa ugu baaqay waalidiinta dhashay ubadkaasi inay ilaashadaan ubadkooda dhammaan bahda nabadgelyada gobolka Togdheerna kala shaqeeyaan xaaladda sugidda ammaanka gobolka. waa shirkan nooc duwan shirarkayga hore aan gari jirnay waxaan isugu nimid dhammaan gacmihii nabadgelyada gobolka hadday tahay guddi nabadgelyo hadday tahay traffic hadday tahay police hadday tahay garsoor hadday tahay xeeraan dhinac kastaba waan isugu nimid maanta waxaana isu kaaya keenay waa arrin amni darro ah oo ka jirta gobolka dahabkii baa laga furanayaa burcagudeeda laga furanayaa waxay groups gangsa oo sita faashish midee sita soorar sita dadka baqdin gelinaya ayaa buuxa waxaan u digaynaa mar iyo lababa waalidkay ka koow waa u digaynaa waalidka ubadkiina ilaashada oo haysta waxaa kaloonu u digaynaa cid kastoo ka ganacsata faashashka iyo baangayaasha la iibiyo kama keenaan cidla meheradaha Burco ee iibiya faashashka iyo baangayaashana waa u digaynaa cidaanu ku helno oo iibinaya ama soo ama faash ama bakoora toreyle ama le seef ee lagu qabto waa booliisku ay maqlayaan talaaba laga qaadaya sharci baana loo marayaa waa dhalinyaro isku rustay oo burcad noqotay oo gobolka samaysatay oo waxyeello u geystay dadkii gobolka ku noolaa bulshada iyo dhibayaan runtii waalidow waa digin halkan maanta waa digniin ku sheegayna waxa lagu xukumayo talaabada la qaadi doono laakiin waxaan ku sheegaynaa digniin baan ku siinaynaa inaanad hadhow tacabanin adoo ilmahaaga dad ku sii daayay u fasaxay inuu labada habeenimo iyo toddobada habeenimo dadka ku baadho suuqa kole anagu waajibkayga waanu qabsanaynaa haddii alla ka dhigo laakiin qabsada baanu dileenahay ilmihiina intaydaan diidayn oo aydaan meel dheer ka doonin yaa waxaa dhici doonta in dhammaan gobollada dalka la kala geeyo jeelasha yaa ka samaysan in lagu kala daadin doono wixii aanu qabanno dadka waalidka ee ku nool gobolka Togdheer gaar ahaan Burco ee dadka laga hadlaya dhalay inay ilaaliyaan carruurtooda oo ay noqdaan kuwa gacanta ku haya dadkooda haddii ay gacanta ku hayn waayaan waxa gacanta ku hayn doona sharciga laakiin waxaanu u digaynaa dadka waalidka ah ee dadka dhalinyarada ah ee nabadgelyo darrada ku haya gobolka dhalay ee hadhow oran doona aniga kaygu waa iimaan waa wadaad waxba ma samayn waa qof wanaagsan kuwaas aan la hadlaynaa bariinta koowaad waxa weeyaan bulshada Burco ku nool ee xaaladda nabadgelyo ku soo korodhay xaaladda nabadgelyo darro ku soo korodhay kala shaqeeyaan booliiska iyo hay'adaha khusayso in la sugo xaaladda nabadgelyo kala shaqeeya Waaqa Aadan Maxmed